KNN أنيا كومان كالي كلسوني ساي كلامان أنيا كومان كالي كلسوني ساي كلامان أنيا كومان كالي كلسوني ساي كلامان si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan aryaada bariga war ma haysin inta haanta qabada aqaar ka sare banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sideynaaye waan qaraabanaynaye kay qalooc la taayo wayno qoray afkiis ninkaan dhoof ku iman bay dagaaladu dhibayaan eesaantii masiya good madax shabeelleefta malageedi baa galaye war aan idin akhriyo qodobada aan ku heshiinay war saxaafadeed ka soo baxay beesha kalamaan oo maanta iskumaan ka noqotay xaaladda taagan markaan aragnay damaca iyo dulmiga kukuuyaha kudhiingaha kamuungaha iyo kalajiinka hamiya kenya yote markaan aragnay dareenka kacsan ee bulshadeenna aan ku metelno buuqa iyo isbarbaryaaca waa tuwaan gubana markaan aragnay ismoogaysiinta iyo aamusnaanta madaxda kore liidaryaan gubana bahda kalamaan waxay soo saartay go'aan ka kooban 3 qodob iina taatu koow in la joojiyo sunta cagaaran oo la ogaaday xataa inaan xayawaanku daaqin miraa ya kenya labo in ciidanka caloolaha buuran ee kenya oo markii hore sharci darro ku soo garay dalkeenna cagaha ka qaadaan ciideenna oo la ceyriyo It was true they came our country agrish askariya Kenya yote qodobka saddexaad inaan la aqoonsan xuduud beenaadka Ingiriisku sameeyay oo lagu kala qaybiyay bulshadeenna gaarisa aan wajeer waa tuwaan gubana bariga heebaangadaad madaxu uga wada jartay ugu dambayn go'aankan wuxuu dhaqan gelayaa markii laga baahiyo KNN war annaga biyoon kuma aanan heshiinayo wax ninkan u daldalaye waxay kalamaan uga digaysaa bulshada Soomaaliyeed kala qaybsanaanta iyo isbarbaryaaca taasoo keentay in beer la fayeeshay anigu waxaan dhiilay bacdaada beera la fayeeshadaada ma aqaanihu badayda baad ku dhiibima bararna waa buukay aqaan badayda baad ku dhiibima bararna waa buukay aqaan haye war waxba hadaalinina Kenyaati shirib ma yaqaan war ana u fasiraya Kenyaatiga shiribka siyaan gubana habaana kubatiya weewe in loo bariga heebaangadaad iskala waafaqday war hadii hore loo yiri waa shay macaan una malayga hadda waxay xaaladdu maraysaa waa shay macaan qota shidaalka war maahan waa shay qaali ah dhaca shidaalka weey war Abu Salaad Abdullah wuxuu yiri biyaha anaga iska leh badan inuu ma aha war waxa la yiri warka waa badisaane bulshadii xumaan lagu falo ficil sameyn weyda fashil baa ku dhaca aadna wuu kala fogaataa hey basaan bisyoom badeynay basay ka tahaye haw basaan bisyoom badeynay basay ka tahaye haw basaan bisyoom badeynay basay ka tahaye haw basaan bisyoom badeynay orbadu waa basta marka leedahay ma bada gubata waa biye nimayo waxaan ii sheegaa horta taxsiyaatiin tabarna maliidina tama marata taxso hoosiin aqaltiir laanti kaligi ma taagne haddaynan istaakulin tabar yeelamayne ka tashada cadaw isku tiirsanada Soomaaliya mariya laba waad murgucateene masallahan gumeysku sita 100 masiibaahe waa madal mahar weyn haduu meel yar ka helo halkii waa laga mudayna weynaad ka maagtahay warsaas maana waxay ahayd taraanturootay kuftay dhacday ayaa taqaan war hadda ka hor wiil baa aabiis wuxuu soo gaday jiray macaws Indonesia markaas wuxuu maqlay waxa dhintay madaxweynaha Indonesia wuxuu yiri ha dhinto dharxumadan ba ku nacay marka Kenya ha baxdo qaadka iyo qashinkan ba ku nacay warnamay waxaan la yaabana dawladda Kenya inta xiriirkii Soomaaliya kala dhaxeeyay jirtay ayay haddana soo rartay maanta qaadkii miya waraadhaanu waxaan la yaabanahay shacabku hadday dawladaha u jawaabaan madaxdu maxay qabanaysaa xayta dadkan dawladooda ka horeeya arinaga shibdhe dawladu waa shacabke war qaranka Soomaaliland hadda islaaf lahaydeen qaadkana annaga idin keeni lahayn Kenya annaga idin dhexaadin lahayn aarakalisa dawaataas adna waxaan ku nacay digsi markii loo heestay qaadaan waxaan laastaa war Kenya madaxweyne
xaafa jiro la soo heshiinaya arrintaana dhammaynaya iswaalinina aryaadaha hadda ka hor dawladdii kacaanka Soomaaliya Itoobiya markay dirirayeen Cabdiqaasim Salaad Xasan oo wasiira la weydiiyo waxa la yiri Kenya iyo Itoobiya waxay ku heshiiyeen dagaalka inay wada galaan miiska dhici kartiin mugaasa Cabdiqaasim ku jawaabay Itoobiya ciidanka ku maqan Kenyana haweenkan u diraynaa mugaasa Kenya cabaado waxay tiri heshiiska waa ka baxay aan Itoobiya la galay ay sheegayaan hadda waraana bariga xilniya dishidayay war hadda gabdhii waa is cadeeyeen dagaal ma gali karaan maxaa la sameeynaya war xilliga Cabdilla sheegayo Allah u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barra wuxuu yiri Kenya haday jooji weydo gardarada sarta saddex hagalka oo bartamaha Nairobi ku taala noo ballan hoosteedana gabar Soomaaliyeed baa shaah ku karin doonto yiri waxa la yiri bahal soo bixi waayo boodkiis ku jire amaas buka warwarka ku daalinine dawladda Soomaaliya mar dhow war weyn baa ka soo baxaya taakara garoonka Muqdisho waxa ka soo dagay safiir tarsan oo soo cayriyay iyo wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya transit ku ahaa oo tarsan gacanta soo qabto Muqdisho keenay war wafdigu waa banaa waxa ku jirta marwada madaxweynaha horta Cabdi Xaashi South Korea ma ka yimid bas waaga ku maqan yahay horta tartan ma iska soo cararaya in raka dambe miyuunoogay war ma ee guriga safaaradda annaga leh Uhuru Kenyatta ma noo soo raro nimayo hore waxa loo yiri tala waa wareerta tiirna waa jawaab marka Kenya talada ka wareerti war nimayo gabar baa maanta Facebook waxay ku soo qortay dalkaygu waa ninkayga waana jeclahay gabar kale comment ka dhiibatay oo waxay tiri dalka waan wada leenahay waana wada jecelnahay gabadhiisa markay ka laabatay oo waxay tiri ninkayga lama wada laha wariyaha gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir wuxuu yiri cidii dambe oo dacwadeeda baraha bulshada ku faafisa ciqaab bay la kulmi doontaa marka hadalka ayaa lagu xirnaa Facebook la wareegayso wariyanta kale leen dacwode maxkamadda oo adaalada ab Facebook anaga taayaan war dadka dacwoonaya ilaa ay markii suuqa bakaaro gubtay warbaahinta iyo Facebook ay ka dacwoodaan oo ku qasbayeen sababtoo ah cid kale wax u qabata waa waayeen war sargaalkii 60 nin shabaabka geeda ku dilay Muqdisho inta laga wacay la xiray taliye dhahayna shabaab meesha lagu arkay hal dilo amarkaas waa ka laabtay war ma shabaabkii aqareena difaaca helay aryaadaha waxaa runa miyaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war maye ma hubsadiya handafa oo walaalo war adeerow qaadiya qarsho weeye waxa mataanaha ah war ma musug maasugu haan mataante waryaada waxa la yiri xafiiskii waraaqaha haduu cunug la weydaarto wadada la soo dhoobayaa sheeko waafiyaha waaweynka bay saaran tahay safety waaliduye weerarada isdaba jooga iyo waardiya la'aanta shaqada wasiirkii lahaa ciduma weydiis wariya warkiin hobkaas leeyay Facebook ma ineen ku reebtan ka dacwoono shaqada wasiirkii lahaa ciduma weydiisan waxa kala intiis ka dhaaftiin Kenya waxaan leeyahay ciidankaaga la baxay wala dulmi ku tumado dambiilaheeda dambiila tahay dib u baxay dalkaagii aaday 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 dambiila tahay dib u baxay dalkaagii aaday